بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وين سلامي قال كايو من ودبا قعمة فرني سلام قعلتوي سدناي قال كايو من ودبا وإذن سو قلي مني قال كعيوي من ودبا قريي كفتك كان جيبين قدها وصو قالنا قال كعيوي من ودبا وانا وتها قال كعيي جيسي البرباشي قال كعيي من ودبا قاشان قاد اتكيسي لقيقي كعانو قال كعيي من ودبا بريه قليدي يميس كان بيها قرين قال كعيي من ودبا جيجي هل يا عبد الله عيسو قال كعيي من ودبا قل مدقلو دي هايبان دين سو قلبي قال كعيي من ودبا قل مدقو ده هشيسان قوشي ده فيديني قال كعيي من ودبا تاريخ ذا البحن ماذا أي هو انتهى مقالة قال كعيو وحيكم مغتا سودوين تديران وادنو سمايسين البحن ماذا إنه وحيكم مغتا دولة نماذا دلين يري واي الرقية دمر أظهرتين كتاقنتين وماتسنتين waxaan idinkugu nimid socdaal qayb ka mid a in la adkeeyo maamul goboleedka galmudug laakiin waxaa sharaf weyn ii ah inaan taaganahay magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedka galmudug 13 sano ka hor saddex iyo toban sano ka hor ama 2006 rag Soomaaliyeed oo idinka tirsan ayaa aasaaska u jeexay Allah u naxariiste oo ugu horeeyay halyeeyeenii kiimiko waxaan leenahay geedi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horeeyo jenaraal qaybdiid iyo madaxweyne xaaf iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay cabdikariin guuleed ka mid yahay kulligood waxay soo qabteen shaqo kulligood halkan ay ka soo jeedaan kulligoodna waa u mahad celinaynaa dadaalkii ay soo bilaabeen dadkaas idinkuna aad kala soo shaqayseen ayaan socdaal dheer gobollada galmudug oo dhan ku soo marnay si aan u dhammaystirno hawshaas iyada ah gaalkacyo waa magaaladii ay ka bilaabatay halganka gobonimo doonka magac iyo maamuus dadkiina halkan taagan halyeeye ahaan waxaa ugu filan Allah u naxariistee kii loogu magac daray isbartiibada maadaama magaciisu uu nagu weyn yahay Soomaalinimada uu qurxiyey isbartiibadan adigu magac darteenna waa inaan qurxinaa oo ay dawladdu lacag gelisaa
waxaan aaminsanahay inay dhallinyaradu ku farxi doonaan arrinkaas. magaaladani waxay caan ku tahay isbeddel walba oo dalkan ka dhaca waxaa hormuud ka ahaa gaalkacyo. isbeddel walba oo soomaaliya ka bilowda waxaa soo bilaaba gaalkacyo. markii burburku dhacay meesha keliya oo laga sameeyey dib u heshiisiin rasmi ah oo dhaqan gashay oo jirtay 25 sano waa magaaladani. waxaan leeyahay soomaaliyay taariikhdeeda soo fiiriya. sababtoo ah waa magaaladii xalay dhalay laga soo gaaray. waa dadkii fahmay in la iscafiyo, waa dadkii fahmay in la wada noolaado, waa dadkii fahmay in la isku khasban yahay meel walbo aad dalka ka degan tahay. gaalkacyo midaysan, isku furan, is-ogol waa bilowga midnimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. maadaama aad tusaale u tihiin ilbaxnimada, midnimada, horumarka iyo adkaysiga, waxaa la rabaa idinkoo tibaaxaya doorka aad ku leedihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaad ku jihaysaan nidaamkaas isaga ah oo ah nidaam horumareed. waxaan soo marnay jid dheer oo aad u jajaban oo aan aaminsanahay si jidadkaas loo hagaajiyo inay khasab tahay in la helo dowlad goboleed shaqaynaysa, maamul loo wada dhan yahay, maamul shaqo. laakiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in dowladdeennu ay mar dhow saxiixday heshiis taabo gelinaya in la dayactiro jidkan laga soo bilaabo beledweyne ilaa gaalkacyo oo mar dhow idiin bilaaban doona. waxaan aaminsanahay si loo helo Soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo galmudug dhammaystiran. in la helo galmudug dhammaystiranna waxaan aaminsanahay in la helo gaalkacyo horumarsan, toosan oo tayaysan. ku dhowaad 30 sano ayay dadka Soomaaliyeed dib soo arkeen, idinkuna aad qayb ka aheedeen in dadka Soomaaliyeed dib la isugu keeno. midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas. gaalkacyana waxaan leenahay waxaa tahay laf-dhabarka dadka Soomaaliyeed taariikh ahaan. waagii hore iyo haddaba waxaan idinkugu yeeraynaa markaa doorkiinnii hore oo weli taagan si ummadda Soomaaliyeed horumarka ay bilowday ay uga mari dhaliso. dalku waa inuu dib u heshiisiin galaa. dalku waa inuu helaa nidaam horumareed oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u adeegaya. sidaas daraaddeed ayaa socdaalkeennu wuxuu ku salaysnaa in la helo nidaam galmudug tii aad soo bilowdeen oo dhammaystiran. sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad noo oggolaataan inaan idinla dhisno, idinla dhammaystirno maamul goboleed galmudug ah oo loo dhisay si furan, cadaalad ah, qof walba xuquuqdiisa uu ka helo, qofna aanu sadbursi ku samayn qof kale. waxaa kaloo aan aad ugu faraxsanahay halkan dib u heshiisiintii ka dhaxday ciidamadii isku dhafka ahaa oo markii madaxweynuhu yimid laga hirgeliyey inay weli shaqaynayaan. waxaan u imid iyadana inaan sii dhammaystirno, sii xoojiyo, wax walbo agab ah oo ka maqanna loo hagaajiyo haddii Ilaah yidhaahdo. gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan. gaalkacyo midaysan waa xalka Soomaaliya oo midaysan. gaalkacyo isku duuban waa Soomaaliya oo isku duuban.
gaalkacyo horumarka ummadda Soomaaliyeed u soo jeesatay waa Soomaaliya horumar iyo midnimo u soo jeesatay waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato reer gaalkacyana Allah barakeeyo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu